Guddida abaaraha ee heer gobol ee Gabiley ayaa socdaal ku hurgalka xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaanba gobolka Gabiley ugu kala baxeen waqooyiga iyo koonfurta gobolka. Socdaalkani oo qaatay muddo 2 cisho ah ama in ka badan 50 saacadood. Socdaalkani gurmadka abaaraha waxay indhaha ugu qabanayeen xoolo dhintay, gaajo, macaluul, haraad baan, dhimasho dunyo iyo dadkii oo xaaladooda caafimaad adag tahay. Haddaba deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley ilaa deegaanka Cali Xayd iyo tuulooyinka ku teedsan deegaanadaasi ayaa waxay dadku ku soo hayaameen xeebta Saylac ilaa haya iyaga oo dadkani u sii jeeda goobihii ay hore u deganayeen walow ay jiraan xaalado abaareed oo saameeyay xoolahooda. Kasako socdaalkani ay ku jiraan geediga ayaa waxa uu dheer sahay la'aan. Haddaba waxaana gurmadkani abaareed ka hadlay guddida abaaraha ee heer gobol ee Gabiley waxaana yiraahdeen dhamaantood sidoo Gabiley ka soo qululay ee waqooyi u soo cunno doontay dad iyo dunyaba dabadeedna halkan waxaan ugu nimanay xaalad aad u adag kulli tala waan iska weydiino kulli wixii macaawimay ugu horeysay meelahoogii kulkay taga waan u keenanaa insha Allah ta'ala xukuumadda oo barasaabka iyo maayirka Gabiley hogaaminayana soo diray dabadeedna halkan sahankan ka qaadanaa maanta waxa weeyaan dadkan bal wixii bukanay inaan ka qaadno wixii kale tukubi karayana inay meelahoogii ay tagaan reerad degan oo dadkii waqooyi ka soo noqday kuna socda xaggii ay ka soo guureen marka hore ka yimaadeen halkan waxa ku umushay gabadh ayaa ilmo yar ku umushay oo dhowr cisho umulan halkan waa darka saan raqdii xooluna waa ku halkan buuxa xooli ay wateen halkan ay ku hadheen ku dhinteen gabadhi cidladan ay ku dhashay caruurta aad u yar yar kalena way haysataa marka waxa anagu horta runaantii deemiga waxa waaba nuqaadi lahaynba intii aan nuqaadi karno laakiin waxay yiraahdeen ma kala maarmayno oo israacayna dadkaasi waa dadka dhibaataysan waa dadka gurmadka doonaya in loo soo gurmado gabadhaas oo 5 cisho umulanayd oo halkan ku umushay oo labada yar yarna wadata wax dumar ah kalena aanu la socon waa ragu waxa adiga la wadaa walaal iska dhibaataysan waxa ku dhaarka saacinka way ku umushayan walaal iska dhibaataysan wax dhakhtar iyo waxba noomay masaayada tan nimka u dhibaataysan ma iska dhibaataysan imisa cishad umushaadi ka dambeeyay imika 15 cisho waliba soo guurtay xaqan soo qoyban ka soo noqonay marka hore xaqan Gabiley ka soo guurtay marka hore intaan dhaxdun baan aad u dib deegaanka Gabiley alaykum dadkani waa dadkii ku dhashay Gabiley xoolaha soo qululay xeeb ama waqooyi xooluhu ka ilaadeen waxayna ma jirto ma waxa u socdaan tuulooyinkan iyo meelaha ku dhow sida Cali Xayd oo kale waxa la go'aamiyay in saddexda waqti wax la karsanayo qoyskii saddexda karsada inuu mar joojo u walaali ugu deeqo marka wax weeyaan waa Cali Xayd waa laga baxay gawaari iyo guddidiyo qaybiiba way ka baxeen halkaas ka baxeen ooga waa loo baxay maanta waxa ugu daran wadadka soo baxay idinkana sidaas ayaa qalbiga loogu hayaa diyaarna loo leeyahay dibad iyo gudaba wax la hayaba ama ha yaraata ama ha badnaatee qayla dhaanta waa la iskaarsiiyay waana taakulaynta arrinkeeda habeen iyo maalin lagama fadhiisto idinkuna ilaahay barya qalbiga wanaaja iswada saamaxa ilaahay isku xidha aan bayna kaafeesa ka bilaadan idina ku dhaqmayso gurmadna walba waa loo diray madaxweynaha Soomaaliland oo la hadlay wasiirada maxayade barasaabka maayarka cid kastaaba rag iyo dumarba gurmad baa ku jira mas'uuliyiinta agabar warbixinta aad nasiiseen iyo sida yaani aad ugu warqabtaan maxaan ku ilaahay deegaanka aad baad u mahadsantihiin waxaanu annaguna waxaanu ugu waajibaa wixii siday u jiraan ee noogu sheegteen inaanu gaarsiino mas'uuliyiintii iyo dawladda ilaahay iyo alla barigaba inaanu ku daro iyaanu arrinkaasaan annaguna idinku kaalinaynaa halkaasi ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada iyo xaaladooda caafimaad dadweynaha soo hayaamaya waxaana hadaladoodii kamid ahaa marka waxaan nahay dadkii abaaraha dacal ka soo hayaamay waqooyi halkana ku soo dhacay iyo ku sii yaalaba hadii la guro abaartuna aad bay u fool xun tahay xooluhuna aad bay u tamar liitaan ambase way hadhaan ambase dhimashay leeyihiin oladii xeeb tagtaan dabadeed waan ka soo noqonay imigana halkaan dad iyo xoolaba isla radnay haddii la ku roon yahay imigana dad wixii sara waxay u tukubayay ayaanu imiga halkan kaga soo baydhno nidii bal dadkeenana dhex gashaan imika marka waxaad ku socoteen Cali Xayd Xayd baan eegtay marka sababtaad ugu socoteen maxay waxaan nahay inuu bal dadkii wixii dhagaradeed aragtaan balad wax soo weydiisataan walaal iska dhibaataysan waxa ku dhaarka saacinka way ku umushayan
والله إسكت دباتيس واحد اخترع يو وحبنا نومي من سلا إذا تاني مكبو دباتيس أنا ما نسكت دباتيس إيه مخشني تونيش حاجة كسوقتين حاجة نسوق قوي من كسر نقلنا مركورنا حاجة قبيلة كسوقت مركور أنت عند حد مبان أضو دب دقان قبيلة عروق كان أضو الله قبل بس تدرك كم إسكت دقان waxaanu ka soo quulay waa buso waa gebilay meeshaanu u quulayna waa awdal oo waa waqooyi waa xeebta xanuun baa dadkii ku helo waanu soo noqonay biyo qabow tagaanu isnay soo kacanay foodii tugribu dadkii ka dhaqaaqi waayay sheekada xoolaha iyada meesha ka saaro dadkii waa ka foodii tugri ka dhaqaaqi waayay ma garanaysaa kadib farsamo iminka bus iyo dee wadankii lagu gaaraa ma muuqato dadkii halkaasuu yaala farxaan cabdi muqbayaa xarta space channel waqooyiga magaalada Gabiley